muxuu ahaa hadalkii uu Paul Pogba u sheegay saaxiibadiisa kooxda ee qalbi jabka ku abuuray jamaahiirta kooxda United. Man United ayaa dhaxda kaga jirta mashaqo aan caadi ahayn waxayna bilaha ka dhiman fasal ciyaareedkan ku daaleysaa sidii ay kaalinta afraad u soo gali lahayd taas oo hadda ay u jirto 6 dhibcood. Red Devils waxaa ka dhaawacan 3 ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan waana Paul Pogba, Scott McTominay iyo Marcus Rashford balse waxaa jira warar xan ah oo xidiga reer Faransa ka fogeynaya garoonka Old Trafford. Manchester Evening News ayaa lagu qoray in 26 jirkan uu diyaar u yahay inuu dhamaadka fasal ciyaareedkan kooxdiisa ka codsado in la iibiyo wuxuuna aadi doonaa midkood Real Madrid iyo Juventus. sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha kooxda koobaad ayaa doorbiday in Paul Pogba iskaga tago kooxda waxayna aaminsan yihiin inay faa'iido fiican u tahay qolka labiska. Real Madrid iyo Juventus ayaa si daran loola xiriirinaya xidigan waxaana heshiiska uu kula jiro Red Devils u dhacaya 2022 waa kuma xidiga Manchester United ee habeenkii $4,500 ku seexanaya jasiiradda Maldives. Farid ayaa lacag badan ku qarash gareynaya fasaxa oo la qaadanayo xaaskiisa Minukui. xidiga reer Brazil ayaa ka faa'iideysanaya fasaxa kooxdiisa ay heshay kadib markii uu ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican Man United bishii Janaayo. xidiga qadka dhexe ee Manchester United ayaa kireystay villa uu habeenkii ku bixinayo $3,500 oo gani oo ku dhiganta in ka badan $4,500 oo ku taala jasiiradda Maldives. guriga uu Farid kireystay waxa uu ku dhex yaalaa badda wuxuu leeyahay xeeb u gaar ah oo cidna la isticmaalaynin halka laba baraagudood oo kuwa dabaash ah uu qabo waxa uu si dheer shaneemo banaanka ku taala iyo goobo lagu ciyaaro. inkastoo lacagta uga baxaysa ay qaali tahay haddana Farid wuxuu ka qaataa Manchester United isbuucii $120,000 wuxuu garoon ku soo laaban doonaa marka kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay wajihi doonto Chelsea 17 bisha Febraayo. laakiin ilaa iyo waqtigaas laga gaarayo Farid wuxuu ku raaxaysan doonaa jasiiradda loo dalxiis tago ee Maldives. si kastaba lacagta uu dalxiis ku bixinayo waxay ka yar tahay doontii raaxada uu Ronaldo ku kireystay $180,000 oo gani isbuucii xagaagii la soo dhaafay. kalan sareenta gool dhalinta kabta dahabka ee horyaalada Yurub, Premier League iyo La Liga oo la caybeestay. tartanka gool dhalinta kabta dahabka ee horyaalada Yurub ayaa meel xiiso la maraya iyadoo horyaalka Serie A wali calanka u sido halka horyaalka Bundesliga ay wali tartan adag ku jiraan marka loo eego Premier League iyo La Liga. kabta dahabka ee Yurub European Golden Shoes waxa la siiyaa xidiga ugu goolasha badan horyaalada Yurub iyadoo goolasha dhibco lagu bixiyo. goolasha laga dhaliyo 5 horyaal ee ugu waaweyn Yurub goolkiiba waa 2 dhibcood halka kuwa xiga uu goolkiiba yahay 1.5. weeraryahanka kooxda Lazio Immobile ayaa hogaaminaya gool dhalinta horyaalada Yurub isagoo aruursado 50 dhibcood kadib 25 gool uu ka dhaliyay horyaalka Serie A. waxaa ku soo xigay xidiga Bayern Munich ee Lewandowski oo 44 dhibcood leh kadib 22 gool uu ka dhaliyay horyaalka Jarmalka ee Bundesliga. halka xidiga kale ee Bundesliga ka ciyaara ee Timo Werner uu ku jira kaalinta saddexaad isagoo 20 gool u dhaliyay kooxdiisa RB Leipzig. waxaa afaraad ku jira Erling Haaland oo RB Salzburg iyo Borussia Dortmund u ciyaara xil ciyaareedkan wuxuuna dhaliyay 23 gool laakiin dhibcihiisu waa 38 dhibcood maadaama uu goolasha RB Salzburg uu goolkiiba u dhigmo 1.5. xidiga Juventus ee Cristiano Ronaldo oo dhaliyay 19 gool ayay 38 dhibcood wadaagaan Haaland. waxaa ku xiga xidiga horyaalka Premier League ee Jamie Vardy iyo Sergio Aguero halka kaalin 8aad uu ku jiro xidiga Inter Milan ee Romelu Lukaku iyadoo xidigaha Monaco ee Ben Yedder uu 9aad ku jiro. waxaa booska 10aad fadhiya Lionel Messi.